Bismillahir Rahmanir Rahim kulanti waxaan daawadayaal halkan waxaan tawararka qodobada aan idinkugu soo gudbin doona warkeena waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya oo shaaciyay arrin farxad gelinaysa maamulka Soomaaliland sidoo kale waxaad daawan doontaan Sheekh Shaakir oo ku dhawaaqay go'aan lama filaan ah madaxweyne Farmaajo oo qodobo xasaasi ah hordhigay madaxweynaha maamulka Galmudug xaaf xog iyo xaqiiqo qarsoon ayaad ku daawan doontaan warkeena loolan siyaasadeed oo cusub oo ka dhex qarxay damul jadiid iyo nabad iyo nolol madaxweyne xaaf oo fariin uusan filaynin looga dalbaday Muqdisho iyo Khayre oo qaatay go'aan lama filaan ah ciidamada Muqtaar Ruubu oo ku biiray dagaal laba maalmood socday intii aad maqasheen saaxiibayaal waxay hayeen qodobada wararkeena ugu waaweyn markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo dhameystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo xalay xuska munaasabada 1 Luulyo uga qayb galay xarunta madaxtooyada ayaa hambalyo kadib soo hadal qaaday arrimo ku aadan midnimada Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in midnimadu ay tahay mid muhiim ah guud ahaan Soomaalida meel kastoo ay joogtaan ay u dan tahay sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in dawladdiisu ay ka go'an tahay in ay ka qanciso Soomaaliland tabasho walba oo ay qabto si meesha looga saaro kala qaybsanaanta dhinaca kale mudane Farmaajo ayaa waxa uu ammaanay maamulkaasi Soomaaliland isagoo ku ammaanay sidii waqtigii israaca ay uga tanaasuleen wadajirka ummadda Soomaaliyeed wali damiirkoodii Soomaalinimo iyo wadaniyadoodii wali way nooshahay laakiin waxa noo harsan oo kaliya inaan gaarno oo aan fahmno 59 sano la soo dhaafay waa aragnay midnimo waxaan ku gaarnay iyo waa aragnay kala qaybsanaan iyo qabiil iyo qabyaalad iyo burbur waa aragnay waxa ay noo dhintay dhibaatada noo dhintay su'aasha taalo waxay tahay 59 sano soo socda sidee Soomaali u ekaanaysaa anigu waxaan qabaa rajo fiican waxaan aaminsanahay Soomaali inay midoobi doonto insha Allah waqti ahaato waxaan gacmaha u fureynaa walaalaheena Somaliland in ay ku daydaan aabayaashood ee dhaliyay gobonimada aabayaashood oo midnimada keenay aabayaashood oo sharafka Soomaali ay soo martay iyo magaci wanaagsanaa inay ku daydaan maxaa yeelay waxa xaqiiqo ah ummaddu hadday kala qaybsan tahay oo ay noqoto qayb naga maqan ee Soomaalida waqooyi ama Somaliland qayb naga maqan ay noqoto waa wax ka maqan marka inaan fiirno maslaxadda caruurteena iyo mustaqbalkooda inaan fiirno maslaxadda ummadeena iyo caalamka sida uu u dhaqaaqay iyo caalamka sida uu u shaqeeyo iyo wadan walba oo adduunka jira inay nugula dhaqmaan iyagoo midaysan oo aan kala qaybsanayn marka in aan noqono sidii awooyaasheen ama aabayaasheen ay yeeleen oo dalkaani ay xorriyad u keeneen ay u soo dhinteen ay dhiigooda u soo daadiyeen oo intii dhib ahaa ay u soo mareen oo markii ugu dambeysayna aan noqonay wadamadii Afrika ugu horreeyay oo xorriyadda qaatay in aan noqono kuwii taariikhda ku gala maamulka Soomaaliland waxa ay ku dhawaaqday in Soomaaliya inteeda kale ay ka go'day 19 waxaana tan iyo markaasi ay raadinaysay madax banaanin kastoo aysan helin mana jirto ilaa hadda wax ka soo baxay go'aankaasi oo kala fogaana labada dhinac ka dhex abuuray Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxa xukuumadda maamulka Galmudug ayaa xalay ku dhawaaqay go'aan lama filaan ah isagoo oo khudbad ka jeedinaya munaasabada 1 Luulyo oo lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud Sheekh Shaakir waxa uu sheegay in diyaar ay u yihiin in hay'adaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug ay si wada jir ah uga howlgalaan magaaladaasi sidoo kale waxa uu xusay in loo baahan yahay in maamulka Galmudug oo mid iyo xasilooni ay ka muuqato ay ka hargasho deegaanada maamulkaasi guud ahaan madaxa xukuumadda ee maamulka Galmudug ayaa intaas ku daray in go'aanka uu ku soo aadayo munaasabada qiimaha badan ee 1 Luulyo isla markaana ay si dhab ah ay u dhaqan gali doonto arrintan si loo xoojiyo wada shaqeynta dawladda dhexe ee Soomaaliya maamulka Galmudug hadalkan waxa uu si aad ah u soo jeetay dhammaan shacabkii iyo madaxdii ku sugnaa madasha
kuwaas oo uu ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre. jawiga xafladda ayaa mar qura iswada qabsaday dabaaldeg iyo sacab kadib go-aanka cusub oo ku dhawaaqay Sheikh Shaakir. taniyo markii ay kala boodeen Xaaf iyo Ahlu Sunna ayaa waxaa jiray isku soo dhawaansho u dhaxaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya maamulka Galmudug. Ahlu Sunna iyo garabka Cadaado ayaa haatan si aad u xafiiltamaya siyaasadda cusub ee maamulka Galmudugna isku haysta iyo arrimaha doorashada oo la filayo in la qabto bishan July oo hadda koob ay tahay. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo soo gaaray shalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha qaranka Maxamed Farmaajo. Xaaf oo ay garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya una badnaa kuwa daacadda u ah dowladda ayaa si toos ah loogu gudbiyay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya, halkaas oo kulamo qorsheysan oo horey loo sii dhigay kala qaatay madaxweyne Farmaajo. kulanka oo ahaa mid albaabada u xirnaa oo ay adkeed in xog badan laga helo ayay shabakada xanta wararka waxa ay u guurgashay in ay xogtaasi si hoose u ogaato, waxaana ka mid ahaa waxyaabihii labada dhinac ay ka wada hadleen in madaxweyne Xaaf la hordhigay qodobo dhowr ah oo ay dowladda Soomaaliya rabto in ay sameyso, waxaana noo suura gashay in aan helno qaar ka mid ah qodobadaas oo labada dhinac ay ku wada hadleen. waxaa ka mid ahaa kow inuusan isku soo sharxin doorashada madaxtinimo ee maamulka Galmudug. madaxweynaha Soomaaliya ayaa madaxweyne Xaaf ka codsaday in uusan isku soo sharxin doorashada dhawaan la filayo inay ka dhacdo maamulka Galmudug deegaanadiisa, maadaama dowladda Soomaaliya ay rabto in halkaasi madaxweyne ay uga dhigto shakhsi iyada ay wadato. ilaa iyo hadda si cad looma ogaanin in madaxweyne Xaaf uu aqbalay qodobkan ah in uusan mar kale isku soo taagin xilka madaxtinimo ee maamulka Galmudug. qodobka labaad ayaa ahaa in madaxweyne Xaaf uu kala shaqeeyo dowladda Soomaaliya dhicitaanka doorashada. madaxweynaha ayaa Xaaf waxa uu soo bandhigay in dowladda Soomaaliya ay kala shaqeyso in ay dhacdo doorasho maamulka Galmudug, isla markaana uu magacaabo guddi doorasho soo xulistiisa ay ka qayb noqonayso dowladda Soomaaliya, waxaana la soo sheegayaa in labada dhinac ay isku fahmeen arrintaas. 3 ballanqaadkii Xaaf oo la sameeyay. waxaa jira heshiis maaliyadeed oo ay horey u ballan qaadeen dowladda Soomaaliya madaxweyne Xaaf, waxaana kulanka la isku hadal qaaday fulinta ballanqaadkaasi ka hor inta aan loo gudbin fulinta qodobada kale ee heshiiska ku jira. sida ilo xogogaalaha ay noo xaqiijiyeen madaxweyne Xaaf ayaa la filayaa in maalmaha soo socda dowladda Soomaaliya uu ka qaato lacagtii ay kula heshiisay ay ku keentay madaxweyne Xaaf in ay uu bedelo mowqifkiisa doorashada 4 July in ay dhacdo. lacagtaasi ayaa qiyaas ahaan lagu sheegay in ay tahay mid u dhaxaysa 2 ilaa 3 milyan oo dollar, waxaana lacagtaasi qayb ka ah lacagii horey loogu xayiray maamulka Galmudug oo hadda loo isticmaalayo in madaxweyne Xaaf uu ku ogolaado doorasho xor iyo xalaal ah inay ka dhacdo deegaanada maamulka Galmudug. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka hadlayay munaasabadda xuska 59 sano guurada ka soo wareegatay maalinta xurriyadda gobolada Koonfureed iyo sidoo kale midnimada Waqooyi iyo Koonfur ayaa shaaciyay in gogasha dib u heshiisiinta maamulka Galmudug ay taalo markan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, sidoo kalena xarun gobolka Galgaduud. ra-iisul wasaaraha ayaa munaasabadda ka sheegay in magaaladu ay soo buuxisay shuruudihii ku xirnaa in magaaladu ay martigeliso gogoshan aadka ugu muhiimka ah aayaha maamulka Galmudug. hadalka Khayre waxa uu imaanayaa xilli qaar ka mid ah odayaasha beelaha daga maamulka Galmudug iyo madaxweyne Xaaf ay isku raaceen in shirka dib u heshiisiinta lagu qabto magaalada Hobyo, mana cad sababta Khayre ra'yigiisa uu u bedelay, sidoo kalena in la isku raacsan yahay in kale ilaa hadda lama oga. dhinaca kale ra-iisul wasaare Khayre ayaa uga mahad celiyay madaxa fulinta ee maamulka Galmudug aqbalaadiisa ku aadan in ciidamada amniga dowlad goboleedka waa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka howlgalaan magaalada Dhuusamareeb si ay awood ugu yeelato martigelinta gogosha dib u heshiisiinta.
ra-iisul wasaare Kharre ayaa faray hay-adaha amniga ee dowladda Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga howlgalaan magaalada Dhuusamareeb si gogosha laga fidiyay ay ugu qabsoonto sida ugu habboon looguna guuleysto dhismaha maamulka Galmudug loo dhan yahay sal adag oo u adeegta dadkeeda iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. in si Dhuusamareeb ay u noqoto magaalo madax loo dhan yahay inay soo buuxiso shuruudaha magaalo madaxnimada oo ah in dhammaan hay'adaha amniga ee dowladda federaalka ay ka howlgalaan magaalo madaxda Galmudug oo ah Dhuusamareeb. caawa waxaan ku faraxsanahay kana mahadcelinayaa ugana hambalyaynayaa reer Galmudug in codsigeydii uu aqbalay Sheekh Shaakir isagoo ku hadlaya magaciina sidaas daraadeedna aan caddaynayo in gobashii dib u heshiisiinta ay taallo magaalada Dhuusamareeb labaan midowday. caawa waxaa midoobay shacabka iyo dowlad goboleedka Galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan u hambalyaynayaa dhammaan reer Galmudug dadaalka ay muujiyeen. waxaan faraynaa hay-adaha amniga dowladda federaalka inay bilaabaan inay qabsadaan shaqadooda si loo suurtogeliyo gogosha dib u heshiisiinta iyo doorashada. ra-iisul wasaaraha ayaa deegaanada maamulka Galmudug muddo 7 ah jooga safar shaqo isagoo halkaa ku gaaray waxaana uu ku doonayay in guud ahaan la soo dhameeyo khilaafka ka dhex jira maamulka Galmudug sidoo kalena la doorto Galmudug xor iyo xalaal loo sameeyaa sida uu yiriba ra-iisul wasaare Kharre goorsii horeysay. ugu dambeyntiina labada garab ee ugu awoodda badan siyaasadda Soomaaliya nabad iyo nolol oo hadda talada hayda iyo damul jadiid oo hadda sameysay xisbi cusub oo lagu magacaabo xisbiga nabadda iyo horumarka oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn u loolamaya. labadan garab waxaa u dhaxeeya loolan adag oo dhanka doorashooyinka maamul goboleedyada ah oo asaaska koowaad ee loolanka doorashada guud ee dalka ka dhici doonta marka uu dhamaado waqtiga hadda dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hogaamiyo muddo xileynteedu uu ku egyahay. loolanka u dhaxeeya labadan garab ayaa hadda mid barbaro ah marka loo fiiriyo tartankii ay u galeen doorashooyinkii ka kala dhacay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo nabad iyo nolol ay ku guuleysatay, Puntland oo la rumaysan yahay in ay ku guuleysatay damul jadiid oo hadda waji cusub siyaasadda ku soo gali doonta maadaama dani uu damul jadiid ka tirsanaa. loolanka ugu adag waxa uu labadan dhinac ku dhaxmari doonaa doorashooyinka la filayo in dhawaan ay ka dhacaan deegaanada maamulka Galmudug halkaasoo muddo ka badan 7 uu ku sugan yahay ra-iisul wasaare Xasan Cali Kharre. dowladda Soomaaliya ayaa dadaalkeeda ugu dambeeyay ku bixinaysa sidii maamulka Galmudug ugu guuleysan lahaayeen shakhsi iyada ay wadato sidoo kalena laga takhalusi lahaa gabihaan dadka iyada ka fikirka duwan halka xisbiga uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud oo ay culeys weyn dareemayaan maadaama nabad iyo nolol laga yaabo in ay halkaasi kaga guuleysato waxaana ay wadaan dadaalkoodii ugu dambeeyay oo ay ku doonayaan in aysan maamulka Galmudug gacanta u galin xisbiga madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Kharre. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kharre ayaa socdaal dheer ku soo maray deegaanada iyo degmooyinka maamulka Galmudug gaar ahaan Dhuusamareeb, Gurceel, Caabudwaaq, Xeraale iyo Cadaado waxaana uu ujeedka ugu weyn u ahaa sidii dowladda Soomaaliya ay uga hirgelin lahayd qorshaha ay la damacsan tahay maamulka Galmudug oo ay gacanta ay ku dhigto maamul ahaan iyo soo xulista xildhibaanada federaalka marka laga reebo waqtiga doorashada. waanaga intaa saaxiibayaal guud ahaan warkii aad ka daawanayseen xanta wararka waad ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada warkayaga. haddii aad tahay markii ugu horeysay oo aad daawanayso warkeena fadlan dheh subscribe like tasi haddii aad ka heshay muuqaalkeenana qaybta hoose aragtidaada nagula wadaagtay